magacayga waa Sawda Cabdulqaadir Cali. da'daydu waxa waaye 19 jir. waxaan ahay gabadhii kaalinta labaad ka gashay imtixaanka qaranka oo idil. waxaan u mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa ta'ala. alla ka sokow waxaan u mahadcelinayaa waalidiintaydii sharafta mudnaay sida hooyaday macaan Xaliimo Nuur Hagar iyo aabahay Cabdulqaadir Cali Mire. waxaan kaloo u mahadcelinayaa iskuulkayga Imaam Shaafici qaasatan macalin Cadow. magacaygu waa Xaliimo Nuur Hagar. waa maamada dhashay Sawda Cabdulqaadir Cali Mire oo ahayd gabadhii dugsiyeedkan sanadka 2018 2019 ka qalin jebisay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee Soomaaliya gashayna kaalinta labaad. Allah mahad iska leh, mahadaas alle u sugnaatay eerkaas in gabadheeda Ilaahay gaarsiiyay. Allah u mahad celinayna. habeenkii natiijada la soo daynayo horta aad iyo aad u sugaayay, wax badanna waa sugaayay, laakiin habeenkaas markii hadan aan ka sii arkay Facebook iyo waxaas in habeenkaas la soo daynayo natiijada waxa igu dhalatay naxdin iyo macnaha kaalintay ka gali doonta anigoo inkastoo aan ku haminayo in 10 arday ugu horeeya ka qayb ka noqon doono. alxamdulillah, laakiin waxaan arkay in kaalinta labaad kaga jiro. wallaahi habeenkaas dareenkayga boqol u ahaa, aadan u faraxnay. guriga jawigiisa farxad fiican ka muuqatay. annagoo inkastoo aan dareemayay in gabadheeda kaalin fiican gali doonto juhdiga aan ku bixiyay awgeed, haddana alla waa noo hiiliyay kaalinta labaad ee gashay. wallaahi in badan igu jirtay in ay kaalin iyo meel sarabo aan nolosha ka gaarayo, waayo iskuulkaygii waxaan u ahaa hoggaan kaalinta koowaad soo gali jiray. waana ku sii hamigeli jirnay in waxbarashada heer ka gaarto oo wax barato. ayadana dadaalkii anaga aan muujinay iyo qarashkii iyo wixii aan ku bixinay waxay noqotay qof ka soo baxa oo waxbarashadii mar walba kaalin gala. sida iskuulka hadda Imaam Shaafici qaybta Cadow 2 sano waxay ku dhiganaysay lacag la'aan, wax lacag laga ma qaadanin. kaalinta koowaad galaysay maadaama ay kaalinta koowaad gashana waxa la yiri abaalmarin u leedahay, wax lacag laga ma rabo. marka dadaalkeena halkaas uu ahaa. haddana imtixaankii guud ee Soomaaliya oo 30,000 arday ku dhawaad ay gashay kaalinta labaad ay noqotay. ma Allah ma hadda iska leh, dadaalkii anaga aan gelinay iyo kii iyadoo ay samaysay waa miro dhaleen. wallaahi waxa iskugu dheelitiray shaqada guriga iyo waxbarashada. galin waxa aadi jiray waxbarashada, galinka dambe aan guriga aan imaanayn waxa saacideyn jiray hooyaday guriga hoosha iyo waxaas waa ka kala qaban jiray. inkaas habeenkiina waxa gali jiray macallin tuition oo macallinkayga qaaska oo wax bal igu soo celin jiray casharaadka iskuulka. macallinkayga qaaliga Cabdishakuur Keeswa. gabadha dadaal badan aan u suubinay. iskuulka horta ay dhiganaysay iskuul tayo leh oo Imaam Shaafici qaybta Cadow. waxbarashadiisana aan ku kalsoonaa ilaa xad ilmo badan ay iga soo baxeen. haddana waxaan kala suubinay macallin tuition waxaan u qabanay guriga si aan u sii dhisno maadooyinkana physics, chemistry, biology, English ka dhisayay. macalinkaas oo ah Maal Cabdiraxmaan Jeeswa khayr badan Allah siiyo. waa macallin nooga imaaday Uganda oo iskuulka macallin ka ah. khayr badan u rajaynaynaa heerkaasna waxaan isleenahay wax badan naga kabay. wallaahi horta imtixaanka in lagu celiyo waa ku faraxsanaay, waayo arday badan ardayda lama kala saari karo ardayga dadaalay iyo ardayga aan dadaalayn. markii imtixaan qash la helo waa arday walba wuxuu keensanaya buundo heer sare. taas ma ku faraxsaneen in saas uu ku sii socdo imtixaankii. waa alxamdulillah waan lagu celiyay. horta waalidiinta ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaa qaasatan waalidka in gabdhaha iyo wiilasha isku si wax loo baro. markay waxbarashada tahay gabdhuhu waxbarashada waa kaga fiican yihiin xagga wiilasha. hawsha gurigana way qabtaan, laakiin haddii waalidku uu dib dhac sameeyo wiilasha kaliya wax baro wax wanaagsan maahan. gabdhuhu wiilasha way ka fiican yihiin. waxaan dhihi lahaa dhammaan ummadda oo dhan gabdhaha in wax la baro, iskuulada la geeyo, jaamacadaha la geeyo, gabdhuhuna ay wax bartaan ayaguna kaalinkooda ka soo baxaan. waxaan rabaa inaan barto kulliyadda la yiraahdo medicine oo dadkayga bulshada Soomaaliyeed oo idil aan wax u qabto, aan caawiyo dadka duruufeysan iyo dhammaan muslimiinta meel walba joogaan. waxaan rabaa heer sare inaan ka gaaro oo mirahan aan hadda keenay mid ka fiican aan keeno insha Allah. gabdhaha Soomaaliyeed horta waxaan u dirayaa fariin taasoo ah inay isku keeni karaan waxbarashada iyo hawsha gurigaba. ma ahan waqtigaaga idilna ku dhameysatid guri iyo waxaas. waa isku keeni kartaa
inaad gurigana ka shaqaysid oo hooyada aad saacidaysid inaad wax baratid labadaba waa isku keeni kartaa waxay ku xiran tahay saa u aaminsan tahay adiga haddaa aaminsan tahay inay oo gurigaaga keliya aad ku koobnaatid aad wax bari karin waxa laga socdo waxaa waaye niyadda laakiin haddaad niyadaada aad geliso inaad wax baratid iyo maxaa la gurigaaga ka shaqaysatidna waa keeni kartaa waayo Soomaali waxay hore u maamaaday wax walba meesha istigtaal lagu gowracaa marka waxa fariin u dirayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay isku hadii dadaalaan waxbarashada iyo maxaa la guriga inay isku keeni karaan meel heer sare inay ka gaari karaan wiilashan ay ka sare mari karaan